Maanta la ciyaari doona kulamo ka tirsan horyaalada Yurub iyadoo la filayo galabta ilaa caawa in la dheelo kulamadaasi. Marka hore haddii aan ku bilaabno horyaalka ugu xiisaha badan ee Premier League, kulamada galabta ilaa caawa laga ciyaari doono iyadoo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester United iyo Manchester City. Haddii aan fiirino markaana ciyaaraha iyo waqtiga ay soo gali doonaan, kulanka ugu horeeya waxaa wada ciyaari doona kooxaha Manchester City iyo Manchester United, waxaana ciyaartani la baasan doonaa saacadu markay tahay xilliga Geeska Afrika 9:30. Kulankani ayaa ah kulanka ugu adag ee toddobaadkani laga ciyaari doono horyaalka Premier League. Markaani haddii aan sii fiirino kulamada kale laga sii ciyaari doono horyaalka Premier League, kooxaha Brentford iyo Norwich City ayaa wada ciyaari doona iyadoo kulankani la baasan doono saacadu markay tahay 12 maqribnimo. Sidoo kale kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League ee Chelsea ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Burnley iyadoo kulankani la baasan doono saacadu markay tahay xilliga Geeska Afrika 12 maqribnimo. Isla saacadaasi waxaa wada ciyaari doona kooxaha Crystal Palace iyo Wolves. Kooxda Crystal Palace ayaa gurigeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Wolverhampton. Kooxda Brighton waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Newcastle, waxaana ciyaartani la baasan doonaa saacadu markay tahay xilliga Geeska Afrika 8:30 ama 2 saac iyo bar. Kulankani ayaa kulanka ugu dambeeya ee maanta laga ciyaari doono horyaalka Premier League. Haddii aan sii fiirino kulamada kale ee laga ciyaari doono horyaalada kale, aan ku bilaabnay markaana horyaalka Spain, waxaa kulanka ugu horeeya wada ciyaari doono kooxaha Celta Vigo iyo Barcelona. Kooxda Barcelona ayaa booqan doonta kooxda Celta Vigo. Ciyaartani waxaa la baasan doonaa xilliga Geeska Afrika markay tahay 12:15. Kulanka xiga waxaa wada ciyaari doona kooxaha Real Madrid iyo Vallecano. Kooxda Real Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Vallecano saacadu markay tahay 5 saac oo gowa ama 11 habeenimo. Kooxda Real Madrid ayaa doonaysa inay kulankani ka badiso kooxda Real Vallecano si ay u qabato hoggaanka horyaalka Spain. Waxaa sidoo kale maanta la ciyaari doona horyaalka Bundesliga, waxaana kulanka ugu horeeya ee wada ciyaari doono kooxaha Bayern Munich iyo kooxda Freiburg. Kooxda Bayern Munich oo ah hogaamiyaasha horyaalka Bundesliga ayaa waxay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Freiburg. Ciyaartani waxaa la baasan doonaa xilliga saacada Geeska Afrika markay tahay 11:30. Sidoo kale waxaa wada ciyaari doono kooxaha Borussia Dortmund iyo kooxda RB Leipzig. Kooxda RB Leipzig ayaa gurigeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Borussia Dortmund saacadu xilliga Geeska Afrika markay tahay 12:30. Kulankaasi ayaa ah kulanka ugu dambeeya maanta laga ciyaari doono horyaalka Bundesliga. Markaana haddaan sii fiirino horyaalka Serie A kulamada maanta ilaa caawa laga ciyaari doono, haddaan fiirinana kooxda Juventus iyo kooxda Fiorentina ayaa wada ciyaari doona kulanka ugu horeeya horyaalka Serie A ee toddobaadkan laga ciyaari doono. Kooxda Juventus oo qaab ciyaareed aad u liita ku jirtay kulamadii ugu dambeeyay markii loo fiiriyo horyaalka Serie A ayaa waxay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Fiorentina. Ciyaartani waxaa la baasan doonaa saacada xilliga Geeska Afrika markay tahay 8 oo buura ama 2 saac oo gow ah. Sidoo kale kooxaha Atalanta iyo Cagliari ayaa wada ciyaari doono. Kooxda Cagliari ayaa gurigeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda Atalanta. Ciyaartani waxaa la baasan doonaa saacada xilliga Geeska Afrika markay tahay 10:45 ama 4 saac iyo 45. Kulankaasi ayaa ah kulanka ugu dambeeya ee laga ciyaari doono maanta horyaalka Serie A. Markaana aan u jalicno dhanka iyo horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska, kooxda PSG ayaa booqan doonta kooxda Bordeaux. Ciyaartani waxaa la baasan doonaa 11 habeenimo ama 5 saac oo buur ah. Kooxda PSG ayaa booqan doonta kooxda Bordeaux. Kulamadaas ayay ahaan kulamada maanta laga ciyaari doono 5 horyaal ee ugu waaweyn ee qaaradda Yurub, iyadoo kulanka ugu adag ee maanta ay wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester United iyo Manchester City.